سوري صاحبي القيمة يشرف عليهن صاحبة كل حرن هالكان صح برودكشن عقو سوغنا هاي ساكو إن كلا سوهل لنا طبعا ديجان كحيرو دجاحلي أما حير ده مدك سوماليا وبريه قرقحنا ولي بدود جين ده وقبنيين وأنا حير الذهب صاحبة بدن با تماشات كغيب جراه قبل يهون بس كوجرة سوري هذا صاحبي runtii waan ku faraxsanahay saaxiibadayda inaan meel kala duwan aan u soo dhaweeyo burhaan daahir wuxuu kamid yahay saaxiibada qaybiga ku soo dhawaad xiradaha midka Soomaaliya ma sha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u mahadsantiin dhamaan taageerayaasha sax ku xiran page-ka saxa production waxaan joognaa xiradaha maantay waa aragtiin dhulbeereedka waa magaalada qadiimiga oo ka tirsan gobolka Mudug oo ku wanaagsan dhulbeereedka saaxiibayaal waa magaalo taariikhi ah waxaan dhigi karnaa waa magaalada koowaad markii la yiraahdo dhulbeereed dhigada galmudug dhulbeereed leedahay kugu soo dhacaysa xiradaha marka oo meesantiin raxad bay tahay inaan maanta joogo dhulkii wacnaa xiradaha way aad iyo aad oo meesan burhaan daahir waa xiradaha midug Soomaaliya iyo dhulkii qurxoonaa oo indhaha ugu qabanayeen soo dhawaada runtii meel kala duwan baan idin doonaa dhirta iyo waliba waxyaabaha kale أي صدق طبعاً سيدا وجود ما شاهد يسيد حير الذهب. ما شاء الله ودوهاي وأنتوا حكوا ما شاء الله يا حير الذهب وحن عنايا والنتي عم به بابايجي لما قدرت يا رب ده شوجه رحوين شرفت لنا سود ويانا ويمد. ما صنت. ويا صاحبي الجيت كان هذا ينيم وقضاه وجيت كعم بها وطبعاً هذا مريهس طبعاً أنا ننتصر دون هذا إبراهيم النقطة عم بوايكن مركا dad badan waxay yiraahdaan mudug kama baxo cambe iyo waxyaabaas laakiin ana ku rumeynaa inuu mudug wax ka baxay ila soco geedkana waa geedkii loo yaqaan Isbaandheyska oo dabcan mirihiisa aad u jeedaan Isbaandheys marka waxaan maleynayaa geedkan si badan dad badan u jecel yihiin Isbaandheyska lintii baa qayb ka ah oo lintii waa taas oo hadda idin toos u socotaan waan soo jari doonaa hadduu Ibraahim ka noqdo waan soo jari doonaa waa taas lintii waad u jeedaan وأنا حير الذهب هل كان وحير الذهب أما حير الدجاج اللي سيدا دو جراني سيد مدوك سوماليا مركا رنتي مدوك وحياة بدنا على هلا لينتي عم به ماسكي قريه أي نوع به وضعرته مركا قصة الحس نوك هاي هايو طبعا حير الذهب نوحنا سوق جاري دونا مدحونا الجل مدو أحمد عبد الكاري قرقر أو ساعدها صوص عدا قصة وجهان أما قصة وجهان ما أنت بالرئة قصة وجهان مقالة قديمي حير دجاحلي أحمد عبد الكارية حير الذهب حير دجاحلي مدوك سوماليا جيت كان وسيدا ضد جران إنسان ضد بدن وجران أنا فيلايا وجيت كله يقانو ببايجا وطبعا ضد فربضان أي سجار وجران يان هدي طبعا أبيه صعب جدا السوق مارتي وحن قطوسيا طبعا بحال كان كبح حير الذهب مدوك سوماليا أما حير دجاحلي هذه صاحبتي هذا سروة halkan sida u jeedaan waa xal ugu waraabiya jeedaha deegaanka iyo beerta lagu waraabiya matoorkina waa ka soo dabcan iyo tubadii sida u jeedaan marka aad iyo